السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا فرحي فيلسون اوفيشيال هدا نوع عصبتا عن قولينا يسودو وهدا هورونو لجوكتين واتكم هادسنتا لجوغاغا إن شاء الله مانتو حانكا هادلونا فايدوينكا أوليا هويدا أوركا لي قراها xaaladda uurka markii la joogo hooyadu waxa ay u baahan tahay nafaqo badan waana muhiim in ay doorato nafaqooyin badan sida u wanaagsan horumarka uurku jiifta tusaale fruitka sida qaraha waa muhiim hooyada uurka leh sababtoo ah waxa ku yar kaloorida waxaana ku badan vitamins iyo minerals maxaa loogu doortay xilliga uurka qaadashada qaraha hooyada uurka leh waxaa loogu doortay waxa uu yareeyaa bararka sababtoo ah inta badan dumarku waxa ku dhaca xilliyada uurka bararta oo barara gacmaha iyo lugaha qaraha ayaa ka caawinaya kara in uu ka difaaco bararka isagoo kor u qaadaya dheelitirnaanta dareeraha jirka waxa uu ka hortagaa xanuunada subaxii hal koob oo biyo qara ah waxa uu yareeyaa xanuunada subaxii waxa uuna ku bilaabaa maalin qurux badan insha Allah waxa uu jirka ka saaraa sumaha qaraha dheecaankiisa waa uu caawiyaa in uu soo saaro sunta isagoo kor u qaadaya beerka sida saxda ah iyo shaqada kelyaha waxa uu yareeyaa calool istaaga waxa ku jira fiber sare wuxuu kor u qaadaa dhaqdhaqaaqa saxarada caafimaadka leh wuxuuna hoos u dhigaa qatarta calool istaaga waxay kor u qaadaa lafaha caafimaad qabka ee caloosha qaraha ayaana qani ku ah calcium iyo potassium macdamaha lagama maarmaanka u ah horumarinta lafaha ilmaha iyo ilkaha dhibaatada uu ku keeni karo qaraha hooyada uurka leh isticmaalka xad dhaafta ah waxa uu u horseedi karaa hooyada uurka leh in uu saro u kaco heerarka glucose dhiigga iyo sonkorka uurka qaraha oo xumaada ama bulala haddii ay hooyada uurka leh cunto waxay ku keeni kartaa labalabo ama matag xanuunka caloosha iyo mindhicirada oo la majiiro intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii intaa mid ka mid licen ku kulmi doona waxa idinkaga keenaa sidaas iyo amaana